waxaa suuqa lagu dilay kaaraan niman waxa ku dileen nin oo askariya ani waa dayaayay markaas hada dayaayay waxa damiirta isii weysay in ka helo nimankii oo sii socdo wadadan oo jamhuuriyadda kaaraan kala qaybisay inaan ku qabanay ma ahan wadanimada in la isku abuuro waa inaa u dhalataa nin kastaba waxa laga rabaa wuxuu u dhistay inuu wadankiisa u qabto aan la kulanay niman jawaano ku sita hub iyo qoryo iyagoo markaas dabacsanaa kulleyba weeraro qaas oo ah sidii ayagu ay doonayeen balse alxamdulilah shukr rabbil caalamiin ilaahay baa na haleeshiiyey waxaan isku daynay in aanan maaragtay ka cabsan oo aan nafsadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna u hurno nafteennana aan micnaha u hibayno in aan nimankaas iska qabanno mar walba si kastoy ahaataba mayba aminkiis galo ugu siiyo intii aynigood ahiyo qof kastoo iyaga ay adeegsadaan la ogaayayo isha dowladnimo lagu argayo isha dowladnimo lagu argayo far kaligeeda fool ma dhaqdo laakiin faarka ish way ka bixisaa waxaan leeyahay shacabkooda istaaga fadhiga ka kacaandihiina fura waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ilmahayga gurigayga iska dhex fadhiya inaa gurigayga laygu soo galo oo dhacda meesha lagu fuliyo gurigayga gadaashiisa oo ciidan u fadhiyo go'aan ka qaatay inay dadkaas gadaasheeda ciidankaas fadhiyaan ay waxba ay gaaran ani ilmahayga isku dhigno oo dhaabcasan ilmahayga uu soo gaar walaasheedana ay ku dhimato uguslaynayo erino jabo inaga shaqbigu isukaashano anagoo 20 wariyaa ayaa waxaan qayb ka noqonay furimaha hore ee dagaalka inaan ku weelino ciidamada qalabka sida 20 kaas wariye ilaa hadda waxay joogaan furimaha qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha ay ka joogaan cadawga isku hor fadhiya meel walba ciidanku joogo ma joogaan gadaasha dambe wariyaashii waxay joogaan safka ugu horeeya waxa jira indho hore difaac la yiraahdo qayb ka yihiin waxa xusayaa inta lagu jiray howlgalkaani in qayb badan oo kamid ah wariyaashaasi ay waxyeello ka soo gaartay waxa ugu dambeeyay dadkii ku dhintay Axmed Socdaal oo ku dhintay deegaanka Basra isagoo qayb ka ahaa howlgallada lagu xoreynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku xoreynayeen kooxda khawaarijta al-shabaab waxaa sidoo kale kamid ah dadka dhaawacyada ka soo gaareen Khalid Ilka Case oo aan rabay inaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyo inuu in la dabiibo oo dibadda loo qaado oo qayb ka qaatay aad iyo aad u mahadsantahay ra'iisul wasaare shabaabna waxaan leeyahay gafuur duubataay indhaha good ku xirataaba afdaboolataay iyo indhaha geed ku xirataaba gardaroy godkaagii waa lagugu soo galay waxaan halkan uga mahad celinayaa mujaahidiintii halkan soo istaagay oo uu kow ka ahaa wiilkii wariyaha ee duulaan tagay ee jihaadka soo galay ee ku soo dhaawacmay intii ku dhimatay ee kale ee saaxiibadiis ahayd waa shuhado ilaahay ha u naxariisto waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa walaashay farxiyo oo mujaahidad ah oo diiday in inta mid khawaarijii soo gudbo oo gurigeeda ka tallaabo ayadoo dhowraysa walaalaheed oo amnigeeda sugaya oo ag fadhiya in inta loo tallaabo bamba la dhex dhigo oo deedna ay meeshaas ku dhintaan way diiday waxay ka doorbiday inay iyadu dhimato oo walaasheed Khadiijo oo mujaahidadii ay ku shahiido oo ay carruurteedu ku dhaawacmaan ayay ka doorbiday waxaan leeyahay farxiyo qarankaagu taas waa ku ogyahay waxaan u mahad celinayaa wiilashii geesiyaalka ahaa ee halkan wiilkii inooga sheekeynaya sida uu ku qabtay khawaarijtii rabtay inay dilka geysato ama dilka gabaysatay baa kaaraan ka geysatay suuqa kaaraan iyo mujaahidiinta kale ee sharafta leh ee walaalaheena reer Dayniile dhalinyaradaas ayagana waan salaamayaa waxaan leeyahay waxaad qabateen
wixii waajibka ahaa waadna ku mahadsantihiin waana idinka mahad celinayna shacabka reer banaadir waxaan leeyahay hadda ayaan soo gaarnay meel aynu mudannay ilaahay nasrigiisa iyo ilaahay inuu inoo heliyo